وصلوا حرون تعيين كذا نوشته ولد قبلهم شبوك الله بيدان ديريا marka waxaan codsanayaa madaxweynaha iyo saraakiisha in lagu soo noqdo aad loo baaro la dhex galo laga soo saaro ama la abuuro ciidankii daraawiishta ahaa ee la yidiin oo halkan ka asaasmay in halkan dib looga asaaso aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan soo dhaweynayaa madaxweyne waxaan aad ugu faraxsanahay runtii maanta inaan inagu soo booqanno taliskii dhexe ee ciidamada oo ah taliskii aasaaska u ahaa ciidamada Puntland isla markaasna aasaaska u ahaa dawladda Puntland goobtii lagu aasaasay inaan maanta wada joogno aad baan ugu faraxsanahay runtii waa goob taariikhiya waa goob ka qayb qaadatay inuusan Puntland aysan burburin dadkeedu is haystaan ciidankeedu uusan marna kala tegin waxaa farxad weyn ay ahayd maanta inaan soo kormeernay qalabkii dawladda Soomaaliya uga dhacday 1990 oo xataa matooradii wili xirada yaalaan waxay muujinaysaa dunta dadka reer Puntland siday dawladnimada u doonayaan waxaa xaqiiqo ah laga soo bilaabo burburkii dawladda oo hantida dawladeed ee goboladan yaala ay aad u yaray ilaa ay maanta dadka reer Puntland waxay difaac ugu jireen inay dawladnimadooda iyo dadnimadooda aysan burburin waxaa soo wajahay dagaalo iyo duruufo adag oo kala duwan oo colaad iyo abaarba leh waxa ugu weyn oo mar walba gaashaanka u daruurayay oo garabka ugu weyn u ahaa ciidamada ahaayeen waxa dalkan uu saldhigiisa nabadeed iyo nololeed iyo wadajirkiisa saldhig u ah waa ciidanka annagana waxaa naga go'an wadadii hore ee madaxdii hore qaadeen inaan sii adkayno ahmiyaddeena koowaad iyo labaad iyo saddexaad ay noqoto ciidanka iyo nabadgelyada
waxaan insha allah hortiina ka ballan qaadaynaa inaan ahmiyad gaara siin doona ciidanka sidii dib u habeyn loogu samayn lahaa iyadoo la ogyahay muddadii u dambeysay inuu dagaallo badan oo aagag kala duwan ka furan iyo isku dayo badan oo cadowyo kala duwan oo magacyo kala duwan la ay soo weerareen iyadoo dawladdu ay taagteedu dhaqaale ay yar tahay oo aan aad uga xumahay hantida caalamka uu ugu talagalay in lagu difaaco dalka looga ilaaliyo xagjirka waxa ka soo gaara Puntland ay aad u yar tahay waa nasiib darro arrintaas waxaana runtii abiil u diraynaa dadka Soomaaliya taageera waxa ugu weyn oo maanta Soomaaliya la rabo in laga taageero waa nabadgelyo waa cadowgii oo hadda ka soo tallaabaya badaha oo ajaanib leh oo dib ugu soo gurmaya buuraha bari ee Puntland iyo cadow deegaano kale ka imaanaya oo raba in ay midnimada iyo wadajirka Puntland ay wiiqaan arrimahaas oo dhan waxay u baahan tahay difaac adag difaacuna dadkii waa joogaan laakiin qalabka qaybtiis waxa weeye way adag tahay inay dawladda Puntland ay iyadu maarayso xataa hadday dhaqaalo ugu talagasho aad ogtihiin oo hubka qaybtiis lama soo iibsan karo waxaan aad uga xumahay in hub aad u fara badan oo Soomaaliya loogu deeqo uusan Puntland soo gaarin iyadoo ah meesha kaliya oo ilaalisa midnimada Soomaaliya hor istaagtay cid kastoo damac ka gashay Soomaali waxay doonaan ahaadaan haddana in ay wixii mudnaan aysan helin waxa ugu weyn oo annaga aan xisaabta gelin doono waxa ka mid ah in xuquuqda dadka Puntland ay leeyihiin ama ciidan ahaadaan ama shacab ahaadaan in la helo waxaan ku talagelaynaa dadka daneeya Soomaaliya haddii ay dhagaha ka furaystaan in xuquuqda dadkan leeyihiin ugu talagaleen ay soo gaarto dadka Puntland faraha laaban doonaan way isku tashan doonaan haddii ilaahay ka dhigo cid kastoo ku soo gardaroodana way iska difaaci doonaan danahoodana way ilaashan doonaan waxaan rabaa inaad idinkuna u diyaar garowdaan kaalintii hore aa lahaydeen inaad boor ka jaftaan inaad noqotaan dad mar walba waad u taagnaydeene danaha Puntland ilaaliya difaaceeda nafta aad u hurteen kaliya aan ku ekeene shaqo la taaban karo oo muuqata qabta habaca maamul ee ciidamada ku jira saara u ogolaada saraakiisha rabta inay dib u habayso ciidamada inay fursad u helaan waxa ay naga doonayaan inay helaan waan garan karaa markii ciidan ama dagaal uu ku daaho ama duruufuhu ku adkaadaan habac baa soo gala wax lagu la yaabaya ma laakiin waxaan rajaynayaa inuusan kaasi noqon caado aan caadaysano oo sidaas aan ku sii adkaysano waxaan rabaa in dadku u diyaar garoobo isbedel inuu u diyaar garoobo dib u habayn inaan dadkeenna sida qorshuhu uu noqdo ay nala qaataan waxaan u baahanahay ciidamada inaan kala saarno qaybaha ay kala mudan yihiin sida aan ugu xisaabtameynana aan u kala xulanno haddii ilaahay ka dhigo waxaan si gaara ilaahaynkiis ahmiyad u saari doonaa si ciidanka moralkiisa iyo horumarkiisa uu u kaco ciidamada mar walba u taagan dhiirigelintooda oo ay ugu horeeyaan fanaaniinta iyo baambeeda iyagana inaan ahmiyad gaara siino haddii ilaahay ka dhigo waan dareemi karnaa duruufaha inay haysta idinkuna waa dareemi kartaan duruufaha Puntland haysta marka waxaan rajaynaynaa inaan annagoo isku aragti ah duruufaha isla tixgelinayna inaan u istaagno inaan dadkeena danihiisa ka shaqeyno waxaan rajaynayaa maanta oo aan soo booqanay in ciidanku uu farxo oo ilaahay ciidankiis aan hilib geel inay qalno aan maaragtay inaga farxino ciidamada kale oo runtii suugaanta quruxda badan soo bandhigana dhiirigelino idinkoo dhanna waxaan rajaynayaa waad ogtihiin muddadii yareed aan joognay mushaharooyinka ciidamada bishii ugu horreysay waan siinay waan sii wadaynaa laakiin sidii hore ku sii wadi mayno wax la taaban karaa ku sii wadaynaa waad ogtihiin bishaan indhahan ka qabsannay wax kasta oo jiray laakiin waxa xiga waxay noqon doonaan in aan si dhab ah hoos ugu galno waxaan rajaynaynaa ciidanka xuquuqdooda inaan kordhinno waxaan jecelnahay in shacabka Soomaaliya ka qayb qaadataan dakhliga sidii loo kobcin lahaa idinkuna aad qaybtiina iyo daryeelkiina aad heshaan waxaan aad iyo aad runtii halka tacsi u darayaa intii ku geeriyootay iyagoo hawl qaran ku jirto waxaan ilaahay uga baryayaa inta dhaawaca inuu caafiyo waxaan rajaynayaa inta kale ee mar walba u taagan duruufta adagna
ay ku sabreen in uu maaragtay sabarkooda ilaahay u siyaadiyo waxaad difaacaysaan waa dalkiinni iyo dadkiinni annaguna wayna garab taagannahay waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi